iskuulo in loo dhiso iyo haddii tahay in laga qayb qaato wacyigelintooda tan saddexaadna waxa weeye saas maaha saas kuma weydiin wuxuu ku weydiiyey wiilkan Puntland Unity xagay saldhigeedu waa kaas mid koowaad wuxuu ku yiri saldhigaya waaba sheegay waxaan u yiraahdaa xogaa ma sharaxayaan iraahday ha dhinaca kale wuxuu ku yiri iraahday inaad su'aalihi usoo dibooyntiga aan kala hadlay maanta dhan bahalaysay aan hadlo ما سؤالي ما سؤالها أخبار. وكوي مانيا ما متهي أتصو أرانتي. ما يكوي مانيا سؤال شذا كجوا ولا ما أنت ربنا كل جيسنا يعني حقا شمي هدية وحوي وقت يسيد هذا ما سنتهي مركا جرت كستحاد علينا وحوي إن محبتها بالشدة وحوي إسكودوبني وجرت كان استحاد علينا هاي وحوي إن maanka bulshada dhisno oo waxa weeye aan capacity building u sameeyno haday iskoolada tahay haday tahay maxal ah iskoolada farsamo gacanta haday tahay waxbarasho dibadda tan afraadna waxa weeye inaan sameeyno waxa weeye iskaashatooyin ganacsiga ah tan shanaadna waxa weeye inaan sameeyno inaan u doodno markastaba inaan u doodno maxal hadanaha Puntland haddii aan ka doodayno golaha waxa weeye golo laga doodayo Puntland gudaheeda iyo haddii laga doodayo golo waxa weeye dowlad goboleedyada heer ah iyo heer dhaxaba marka su'aashaada waxay ahayd goorma la aasaasay waxa la aasaasay goortii waxa weeye doorasho qof cod ay timaaday waan kaga jawaabay walaal goortii la aasaasay waxay ahayd xilligii doorashada timaaday runtii reer Puntland awal maysan mideysnayn waxaysan ku mideysnayn waxa weeye in markay timaado doorashooyin waxa weeye dadkii intay midowaan iska daayay inay waxa weeye si kala dhacaan oo hal jifo in xilibaan la soo dhaxdhigo la dhaho jifadaas xilibaanka iska leh jifada laftarkeeda waxa weeye isimo waxa weeye gudahooda isku dhex dagaalaan aqalada isku dhex dagaalaan marka dood markay timaaday doorashadii waxa uu qof iyo cod ayaa waxa weeye fikirkan soo bilaamaday inaan maxal ahaa si guud isku nimaano oo xisbiyadaas namideeyaan fikirkan oo fikir waxa weeye xisbiyo iyo waxa weeye doorasho qof ku saabsan kana aasmay marka anagu diaspora nahay badankeen waxa weeye xafiiskana hadda mar dhow waxa weeye gaalkacayo buu ka furman doonaa urur kasta oo mataqaanaa wax qabad iyo midnimo ka shaqeynayo inkastoo de aad dhahday waxaan nahay xibin ka gooday Puntland First oo waxaan ku yiraahdaa asaasiyaashii baan ku yiraahdaa asaasiyaashii oga ina ka carooteen amal aad gooni u furanteen bay ila ekaanaysaa marka maadaama hadda oo de ururkeena uu hadda uu aad u weyn yahay in badan jiray urur sidiisa mabaadiid baa hogaamiso hadda mabaadiid lahayn oo dastuur adigan waxa weeyaan waa isku dhac iyo kala fikir iyo kala tag u imaanaya waxyaalaha aan ku dadaalna anaga waxa kamid ah Puntland First in aan isku qabsan waxa gudaha Puntland fiiri qofka uu taageeri kara xisbiga mideeye xisbiga kahba ani ahaan kara kan kale xisbiga wuxuu noqon karaa ifiye daasad ma qofka asaga xor am ku muwaadin Puntland ciduu taageeriyo xisbiga ka taageeriyo laakiin mabaadiideena waxa weeye wixii outside ka fiiri outside ka of Puntland wixii ka imaanayo inaan mid ka nahay ama qofka opposition ah mucaarad ha ahaado xisbiga ama dawladda marka ku fadhida xisbiga ha ahaado wixii banaanka mar haday ka baxsantahay Puntland in hal mabda laga wada leeyahay mucaarad iyo muxaafidba taladan looga dambeeyo dawladda marka jirto marka Puntland First waa anaga waxaan nahay wixii banaanka uga imaanaya Puntland baan heshiis ku nahay laakiin gudaha Puntland Soomaan gudaha Puntland qof kasta xisbigu rabo taageeri kara xisbigu rabo oo leen kara anagoo hal ururo Puntland First ah baa miday noqon karnaa ka noqon karnaa cid kasta noqon karnaa taa waa gudaheena weeyaan laakiin wixii outside that's why aan isku qabsanayn anaga aan iskugu imaanayn lix jeclo iyo kana reer hebel ah iyo kana gudoomiye ah iyo kan baasito iyo kan baa wuxuu raacay xisbigan uu raacay oo la qabiil yahay magaaladan bay mataqaan uu ka furay xafiis no waxyaalaha marka hore mabaadiida namideynayso waxa kamid ah anaga outside ka culays ka saarnay
puntland waa meesha laga soo galana waa outside-ka waa muqdisho xil baa loo dhiibayaa qof waxa weeyaan wuxuu isku dayaa in uu dadka puntland kala qaybiyo in uu mataqaanaa jifadiisa uu lacag u soo diro ama qolooyin uu lacag u soo diro uu kala qaybiyo sida aan uga barnay dowladdii nabadii nolol inkastoo hadda xasan culis uu isku dayay laakiin uu ku guuldareystay in badan marka puntland first waqtigii nabadii nolol la asaasay waana ku guuleysanay waxyaalaha badan dad badanna waa ka dhaadhacsiinay fikradda puntland first marka inaad soo dhawaada insha Allah wada shaqeyn wacan waxa la biyo meel gudan bay iskugu tagaan mowqifkeena waxa weeyaan puntland oo jirto jamhuuriyad oo arkaysan weeyaan horta horta wiil dhowr wuxuu og tahay in uu shalay kusoo biiray Puntland Fast barnaamijyo badanna uu la socon Puntland Fast qofku kula hadlaya horta dadkii aas-aasay weeye dadkii aas-aasay kula hadlaya meesha dhibaatada ka timaadana waxay ahayd inaan anagu waxa weeye aan shacab ahaan u shaqeyno aysan nariixin ama waxa weeye taladeena aysan ugu yeelan maxal ahaa saameyn siyaasiyiin meesha khilaafka ka yimaadana meeshaas ahayd oo mabaadiida aan u aas-aasna waxay ahayd inaan maxal ahaa anagoo shacab ah aan Puntland hore geeno laakiin markay timaaday in siyaasiyiin ay hor ordeen oo gadaal ordeen in soo dhaxgaleen meesha burburka yimaada meeshaas weeye haddaada ogeena waxa weeye haddaan ku sheegaya dadkii kale aan ogeena xagaas burburka yimaada marka waxay noqotay meel waxa weeye siyaasiyiin ay waxa weeye gacanta ku leeyihiin ay siyaasiyiin ay wadaan marka shacabna way ka baxday anagu waxaan u aas-aasnay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxamuud oday su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo aniga shakhsiyan Puntland Unity shacabkeedan ka mid ahay kamarada la iska ilaalina kamarada iska ilaaliya ku hayntay ma kamarada furan kamarada u furan beentooda ku soco marka anaga waa beenta yar anaaba qeylin lahay anaga Puntland Unity wiilasheena way noo imaadeen qeyr Allah siiyo abaay cajabo oo groupkeena ka mid ahaa noo keentay wiil jaro inaad dhageysataa fiicnaan lahay markii aad dhahaysid Puntland First waxaan ku diidnay siyaasiyiin hore iyo gadaal ka istaagay oo fikirka siyaasi ma rabna inaan ku soconno ma baan rabaa arintaas inaad dadka ka jaahil bixisid oo ah ma dad siyaasiyiin Puntland First waxay noqotay xisbi siyaasadda galay maya wiilkaana adi ma aha maxamuudaa yiri wuxuu yiri Puntland First waxaan ka baxnay markay siyaasiyiin gadaal ka ordeen horeyna ka ordeen maxay tahay siyaasiyiinta hore iyo gadaal ka orday Puntland First aniga waxaan u maqli jiray xisbi u ololeeya Puntlandernimada dadka Puntland jeclaysiiya xaflado meelo ka qabta dadka ma aragtay ereyga Puntland la dhaha gada suuq geeya baan u aqaanay maxay tahay marka siyaasiyiinta gadaal iyo hore ka istaagay ma campaignerka Saciid Cabdullaahi Deni bay ku biireen su-aashaas waa su-aal saxa runtii Puntland Fast daayinsana u sheegay waxaan aasaasnay xilligii doorashada waxaana aasaasay dad waxa weeye isku yimid in waxa weeye ay ka qayb qaataan horumarka marka shacab bay ahaayeen talooyinka la iskugu imaanaya talooyinka la qaadanaya tala shacab bay ahayd saasana u rabnay inaan maxal ahaa anagoo siyaasi waxa weeye ka amar qaadanayn ama waxa weeye siyaasi uusan waxa weeye noo talinayn inaan wax u qabanno marka meesha waxa ka soo baxay siyaasiyiin doorashada markay dhacday siyaasiyiin soo laabtay oo soo rogmay oo waxa weeye laga raayay inay maxal ahaa meesha soo galaan si waxa weeye magacooda waxa weeye meeshaas ugu dhaqaan marka qayb anaga naga mid ah baa meeshaas waxa weeye waxay ka sameeyeen cilaaqaad meeshana ku xirtay marka waxay noqotay in maxal ahaa ay saas noqoto oo aan raahno mar haddii meeshii ay noqotay wax ka baxsan awoodda shacabka inaan ku jireen hadee waxa weeye waxay noqonaysaa xisbi bay noqonaysaa mar hadduu siyaasi soo galay saas ma aha hadalka Puntland First waa xisbi Puntland u taagan doorasha Puntland ka dhacday laba guruuba iska soo horjeeday nin madaxweyne Puntland ka ahaa oo rabay inuu soo noqdo iyo niman kursiga ka ridanay labadaas ay iska hor imaadeen laakiin fikir ah kuma jirin in ma aragtay iyagu kulligoodba dad waxay ahaayeen federaalka aaminsan
waxay ahaayeen kulligood dad Puntlander ah laakiin kursi isku haystay ahaayeen oo isku qabsadayay marka dadka siyaasiyiinta ahaayoo na soo dhaxgalay oo aad ka cararteen labada gruub oo kursiga isku haystaa mise waa gruub kale oo Xasan Sheekh Maxamuud intuu soo adeegsaday ka soo horjeeday jiritaanka Puntland gruubka ka carartay waa gruub noocee ah saddex gruub aa jiray qola Xasan soo dirsado waxay ka soo horjeeday jiritaanka Puntland qolana kursiga isku haysato kursiga waligiis waa la isku qabsadaayo meel walba kursiga la iska qabsada qolada aad ka cararteen marka waa qoladee oo aad uga cararteen xisbiga ilaa wax illa ogaadaa fiican ma ogta horta adduunka ma garanaysaa markii meel ama arrintaas u baahnayn in banaanka loo soo saaro halkan oo kale laga hadlo ama ma ku haboon tahay horta in halkan looga hadlo maya anigu waxa weeye tilaabooyinka anigu ku socdo waa ilaalinaya arrinta ku haboon tahay maya hanoo dul maro anigu tilaabooyinka ku socdo horta wiilka hore ida anigu waan socdaa anigu meel baa socdaa walaal ida su'aal baa la weydiiyay waa laga soo horta anigu ma horta haga dhax qasin dee walaal haga dhax qasin horta anigu waxa weeye siyaasaddu garanaysa inaad maxal ahaa adoo waxa weeye shacab ah inaad waxa weeye siyaasiyiin waxa weeye cod la samaysata maaha ama soo magacaawdid oo waxa weeye sheegtid laakiin hal waxaan ku sheegayaa oo ku dul xulayaa mar haddii dadku isku yimaadaan mabaadi ay isku wada marka mabaadida aan isku nimaano waxay ahayd inaan maxal ah si shacab ah u shaqeyno si shacab ah markii meesha laga saarayna waxay noqotay hadda inaan maxal ahaa dadkii u arkay inay meesha khalad tahay ay waxa weeye oo badankood ahaayeen iskaga soo baxaan marka waa mahadsan tahay horta gudoomiye dul qaado maadaama gudoomiye aad sheeganayso waxaan kuu sixirabay un qof personal ha magacaabin gabadha su'aasheedii dulmar inaan ku dhahaan rabay hadda waa sheegtay aniga ma ogi intaan ogahay Puntland First de wax lagu kala duwan yahay fiiri hadda doorashadii baa dhahday waa lagu kala qaybsamay qayb baa raacday nimanka laga guuleystay de mabaadiida kuma jirto fiiri qofka Puntlanderka ah kan guuleystay kan laga guuleystay Puntland First labada way aaminsan yihiin de inaadeer Puntland First ma ahan xisbi ma ahan urur ma ahan waa dalad wiilsharo ninka ma oran de qoladii laga guuleystaba qol raacdo qolo laba magacaabin hadaan khaldanayn anu ma maqlay uu yiri qoladii laga guuleystay ma oran walaal ma oran waxaan ku yiraahday anagu waxaan iska keenay horta walaal qofku ma garanaysaa wuxuu sheegin afka ha u galin teeda labaad anigu waan garanayaa waxaan sheegi lahayn gabadha markay i weydiisay siyaasiyiinta waa ogsoonaa inay dhayso siyaasiyiinta waxa weeye magacyadooda iyo in maxal ahaa waxaas laga sugaayo laakiin anigu waxaas